madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaas oo dhawaan magaalada Muqdisho u yimid ka qaybgalka caleemasaarka madaxweyne Xasan. Shirkan oo maanta furmaya ayaa socon doona 2 maalmood. Wuxuu shirkani daaran yahay dhowr arrimood sida ay ku warameen ila ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku ololeeyay inay jirto baahi dib u heshiisiineed oo gudaha dalka ah. inkastoo aanay dagaalo waaweyn socon haddana isdiidid xoog leh ayaa ka dhex jirta deegaanada qaar kuwaas oo ay qaar abuurtay dowladii madaxweyne Farmaajo qaarna ay soo jireen ahaayeen. meelaha sida gaarka loo xusi karo waxaa ka mid ah gobolka Gado halkaas oo lagu qabtay 2 doorasho oo isgarab socotay. Axmed Madoobe iyo dadka reer Gado oo markii hore uu mugdi ku dhex jiray ayaa nidaamkii Farmaajo si kala riixay. dhowr jeer oo la qorsheeyay in gobolkaas dib u heshiisiin laga abuuro ma aanay shaqaynin. waxyaabaha Xasan Sheekh uga baahan inuu faryasuuleeyo ayuu xaalka gobolka Gado ka mid yahay. haddii uu nidaamka Axmed Madoobe isku dayo ama fursad loo siiyo inuu ka aarsado xubnihii ka aragtida duwanaa ee reer Gado waxaa halkaas ku dhaawacantay qorshaha Xasan Sheekh ee dib u heshiisiinta gudaha. kulanka maanta u furmaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaanka maamul goboleedyada wuxuu dhinaca kale hoos u sii dhigayaa shaki maamulada qaar ka qabaan inay madaxtooyadu gooni ula shaqayso 2 maamul goboleed. Xasan Sheekh ayaa safar u muuqday inuu iskaga baryeelayo inuu Puntland iyo Jubbaland gooni ugu xiran yahay wuxuu ku soo maray dhawaan maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. kulanka maantana qorshooyinkiisa waxaa ka mid ah in tuhunkaas la sii tirtiro. kulamo gaargaara ayay madaxdu yeelan doonaan gelinka dambe maanta. shirkan u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxda maamulada ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh uu haysto dhowr cisho si uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka. dadka qaar waxay sheegayaan inuu madaxweynuhu rabo inuu shirkan kadib magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub iyadoo shacabka loo muujinayo inuu madaxweynuhu ka talageliyo maamulada oo dhan qofka uu magacaabi doono. sidoo kale waxaa la fahamsan yahay in kulamada gaargaarka ah ee Xasan Sheekh la yeelan doono Siciid Dani iyo Axmed Madoobe in si gaar ah diiradda lagu saari doono arrinta ra'iisul wasaaraha. Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu ka mid yahay dadka sida weyn u raadinaya xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxaa la sheegaa inuu Xasan Sheekh ka ballan qaaday kursigaas intii lagu guda jiray hoolkii doorashada gaar ahaan intii aan loo gudbin wareeggii 3aad ee doorashada. balse koox madaxweynaha ku hareeraysan ayaa si weyn u diidan in la magacaabo Dani. si guud shirkani wuxuu bilaaw wanaagsan u noqon karaa nooca wada shaqaynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo hoggaanka maamul goboleedyada. maxay kula taadiga